aragtiyo fara badan oo cilmiga psychology-ga ayaa adkeynaya muhiimadda uu jacaylku leeyahay nolosha aadanaha. qof ka maarmi karana aanu jirin. waa sabab ka mid ah dheelitiranka nafta. muhiimadda jacaylku waxay ka dhigan tahay inuu qofka ka saarayo walwalka, dayacaadda iyo murugada. cilmiga psychology-ga ee caanka ah ee la yiraahdo Maslow ayaa waxa uu carabka ku adkeeyay aragtida ugu magaca daran 3 xagalka dhismaha shakhsiga. waxa uu ka hadlay muhiimadda uu aadanuhu u leeyahay cunnada iyo cabitaanka ay la mid tahay baahida uu qabo jacayl iyo in loo helo dareen caadifadeed oo naftiisa dhammaystira. haddaba xilliyada qaar waxaa jira qof si dhab ah noo jecel laakiin aynaan ku baraarugsaneyn oo aan fahno markay xeero iyo fandhaal ay kala dhacaan. maadaama inteena badani aanay garanaynin calaamadaha lagu garto jacaylka dhabta ah marka uu qofku hayo si wax loola qabto. calaamadaha lagu garto jacaylka dhabta ah markuu dumarku ku dhaco xishood dumar alle u dhaliya ayaa ka hor istaagaya in ay qirtaan oo ay si toos ah u sheegaan jacaylkooda. sidaa daraaddeed waxaa adag in ay ku qirato gabadha jacaylkeeda, laakiin waxaa jira calaamado laga rabo inaad si gaar ah u eegto oo dhankeeda aad ka fahmayso in ay ku jeceshahay iyo in kaleba. calaamadahana waxaa ka mid ah 1. inay jeceshahay inay waqti kula qaadato. haddii aad arkayso in ay gabadhu jeceshahay in ay waqti kula qaadato, munaasabad waliba ay jeceshahay in ay kula sheekaysato, iyadoo cudurdaar u raadinaysa inay waqti badan kula qaadato, faahfaahinta noloshana ay raadinayso, waxaad ogaataa inay ku jeceshahay. 2. masayr. haddii aad aragto in ay gabadhu ku maseyrayso marka ay gabar kale kugu aragto ama ay danqato markaad gabar kale la sheekaysanayso, waxaad ogaataa in ay dareen jacayl ku qabto. 3. waxay ku baraysaa saaxiibadeeda iyo qaraabadeeda. haddii ay gabadhu ku barto saaxiibadeeda iyo qaraabadeeda dadkoo dhanna ay kaaga sheekayso, waa calaamad ku adkeynaysa inaad agteeda ka tahay qof muhiim ah oo ay kugu fikirayso inaad u noqoto lamaankeeda mustaqbalka. si kastaba jacaylku waa dareen aanu inkarsanayn cilmiga iyo caqliga. xitaa diintu waxay inoo sheegtay in jacaylku yahay miisaanka nolosha aadanaha. waa kii nebi maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee lahaa xadiis uu micnihiisu ahaa dadka isjecel guur waxa uga qeyr badan ma arkin. laakiin labada dhinac waxaa waajib ah inay ogaadaan in jacaylka dhabtaa uu yahay doon ay waajib tahay in la gaarsiiyo beri ammaan ah si ay hirarka badweynta uga nabad gasho. waana in jacaylku ku biyo shubtaa guur.